iyadoo ay baryihii maalmihii ugu dambeeyay khilaaf balaaran dhex taagnaa iskaashatada Tigaha iyo sidoo kale Basaska ayaa waxa maanta xarunta maamulka gobolka Togdheer kulan balaaran ku wada yeeshay Gudida ammaanka gobolka iyo sidoo kale iskaashatooyinka Basaska iyo Tigaha iyadoo halkaasi laga soo saaray go'aamo kala xadeynaya tiglayaasha iyo Basaska waxaana ugu horreyn go'aamadaasi halkaasi ka akhriyay xogayaha gobolka Togdheer arinta Tigaha iyo Basaska ee isku haysta wadooyinka gaar ahaan wadada qasabka iyo wadada maxay ahayd October xaafada October la yiraahdo go'aankii baan akhriyay ku wadayaasha iyo milkiilayaasha Tigaha ee ka hawlgala degmada Burco ujeedo go'aan gudida nabadgelyada gobolka gudida nabadgelyada iyadoo tixraacaysa go'aankii ay ka soo saartay dawladda hoose degmada Burco degmada Burco ee ku saabsanaa kala xadeynta wadooyinka Tigaha iyo Basaska ee nuxurkiisu ahaa Basaska in loo xadeeyo wadooyinka qasabka iyo wadada October dadweynuhu ku nool may inay inay guraan Tigahu ay mamnuuc ka yihiin labada wado balse in ay ka rakaabsan karaan inay fasaxo dhammaan inay ka ganacsadaan meelaha kale inteeda kale magaalada inteeda kale Tigaha laga bilaabo tigta lagu qabto labada dariiq ee qodobka koowaad tigta lagu qabto labada dariiq ee qasabka iyo October iyadoo ka rakaabsanaysa dadweyne ama alaab buraysa waxa lagu fulin doonaa xeerka nabadgelyada ee wadooyinka ee qodobadiisu hoos ku qoran yihiin qodobka 102 iyo qodobka 505 ee xeerka ciqaabta guud iyadoo lagu fulin doono ganaax lacageed oo kala ah marka koowaad ee lagu qabto waxa laga qaadayaa 500,000 oo shilinka Soomaaliland marka labaad ee lagu qabto waxa laga qaadayaa ganaax dhan 800,000 oo shilinka Soomaaliland marka saddexaad hadii lagu qabto waxa laga qaadayaa 1 milyan oo shilinka Soomaaliland dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Gaashaanle Sare Cabdi Cali Xaydi isagoo halkaasi ka akhriyay qodobo balaaran oo halkaasi lagu kala xadeynayo tiglayaasha iyo sidoo kale Basaslayasha waxaana halkaasi lagu sheegay inaanay wadada u dhaxaysa October iyo qasabka aanay mari karin Tigahu iyadoo halkaasi si bareefada u maraan mooyaane awgeed wadanka dadku waxa weey anshaxa waa in la ilaaliyaa sida qodobka xeer number 51 qodobkiisa 8aad uu sheegayo waxa loo baahan yahay in anshaxa la ilaaliyo ciddii ku xadgudubta ee tixgelin weyda ee ixtiraami weyda qodobada aan soo sheegnay waxaan ku qaadi doonaa xeerka anshaxa law number 51 qodobkiisa 8aad ka soo sheegaya in bil rumaana marka hore aan u diro mar labaadkan aan raxbaanka bil rumaan oo kale uga sameeyno 2 bilood oo banishment ayaanu siinaynaa qofka ku dhaqmi waaya xeerka funi waaya Barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Usugu ugu dambeyntii halkaasi soo gunaanaday ayaa sheegay inuu dhaqan gali doono maanta ay bishu tahay bisha 9aad xeerkana isla qaateen laga yeedhiyay oo aan u wada joognaa go'aankii gudida nabadgelyada gobolka ay ka gaadhay khilaafkii muddada soo jiitamay ee u dhaxeeyay Basaslayasha iyo Tiglayaasha iyo maaragtay tagaasida kaleba sida ay maaragtay u akhriyeen una sharaxeen taliyaha qaybta booliiska iyo xogayaha go'aamadeedii akhriyay ayaa horta arintaas go'aanka gudida nabadgelyada ku soo maartay ku soo baxay waxa la isweydiin karaa maxaa sababay in go'aanka ay gudida nabadgelyadu soo saaraan gudida nabadgelyadu waxa weeyaan hay'adda u sarreysa ee xil saaran gobolka nabadgelyadiisa in la ilaaliyo wax kasta oo nabadgelyo darro keenaya ama u muuqda sifafaale ay ka soo socoto nabadgelyo darro waxaanu maandeedu haysanaa inaanu xakamayno go'aamana ka soo saaro Axmed Jaamac Aadan Axmed Digiro telefishinka caalamiga Soomaali Cable xarunta maamulka gobolka Togdheer Burco